السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan asxaabta iyo dhammaan ardayda. aniga magacayga waxa la yiraahdaa Saad Maxamed Jaamac, waxaana ku magac dheerahay Saad Xasanaad. waxaan ahay macallin ka mid ah macallimiinta dugsiyada sare wax ka dhiga. waxaan joogaa maanta saacadu ay tahay 12 ayaa waxaan joogaa xaafadda la yiraahdo 150ka gaar ahaan aqalada ka mid ah. waxaan xasuustayo niyadeyda ku soo dhacday sheeko aan doonayay markaa inaan u gudbiyo dhammaan daawadayaasha. marka dhageysi wacan insha Allah. sheekadu waxay ku saabsan tahay sheeko jacayl ah oo malaawaal ah. waxa qoraa ka mid ah qoraayada caanka ah ee reer galbeedka. marka sheekadu waxay ku saabsan tahay nin iyo gabadhiisa wada socdo. waxay booqdeen meesha loo yaqaano ana marzuuga amba xadiiqat alxayawaan amba beerta xayawaanada marka af Soomaali lagu macneeyo. gabadhu marka ninka qaba waxa ka weeyay muxibbo iyo kalgacal. iyagoo wada socda ayaa waxa arkay daayeer iyo daayeerad. marka daayeerku waa xayawaan aad iyo aad u fanaan ah. daayeeradii buu dhowranayaa marka wuxuu muujinayaa muxibbo iyo kalgacal. dabeetana gabadhii baa ninkii ku tiri balaag daayeeradaasi aad iyo aad bay ayaan wanaagsan tahay oo aad iyo aad bay u nasiib fiican tahay. markaasuu ninkii baa ku yidhi waayo. markaasay tiriyeen daayeerkan jecel ayay la kulantay, nasiibkeedu aad buu fiican yahay. daayeerkan aad iyo aad buu jecel yahay. markaa waa kan dhulkanaya madaxa u salaaxay. ninkii aduu lama aadan iska dhaaf. labadoodii baa israacay. haddana waxay u yimaadeen shabagii ku jiray libaaxu gooni buu fadhiyaa, gooshuna gooni bay u fadhidaa. markaa waxay ku tiri gabadhii balaag barkuwan libaax muxibbo iyo kalgacal midnaba le maaha. gooshii ag fadhiday wax dareena uu muujinayaa ma jirto. markaa gooshani waa gool aad iyo aad u nasiib xun oo nasiibkeedu aad iyo aad u xun yahay. ninkii baa dabeetana ku yidhi niyo aduu jacaylka masaasad ku macnaysaa. markaasuu tiri haade jacaylku waa in dee labadii qof dareen uu ka dhaxeeya. markaasuu ku yidhi anigu haddaba saa umaan fahmina ka war. waxaan u fahmay anugu inuu libaaxani gooshan uu aad u jecel yahay, daayeerkuna aanu waxba jeclayn. waxaanan ku siinayaa caddayntiina waan ku siinayaa. intuu dhagax qaaday ayuu ku dhuftay daayeerkii waa carrayba. wuxuu ku dhuftay baan u jeedaa daayeeradii. bal inuu daayeerku xanaaqo muu xanaaqin waa u carrayba. daayeeradiina ka daba carartay xaggii libaaxu yimid. gooshii buu dhagax ku dhuftay. libaaxiyo cadhaysan baaba shabagii jijibinba gaadhayba. ninkii dir iyo tubaas shabagaasunbaa ninkii ka qabtay. ninka cunbaabu islahaaba cadhadii, waayo gooshiisii ayuu ninkan damaaciyay inuu wax yeelo. dabeetana gabadhii buu weydiiyey. wuxuu ku yidhi yeemaak jacaylka haddaba ka warran sidaa. daayeerku hadday ka dhab tahay oo uu jecel yahay daayeerada se wax kama celiya. marka qisadaa gaaban waxaanu ka faa'iideynaa jacaylku inaanu ahayn hadal iyo dhulkasho iyo waxaas. qofka bani aadanka jacaylka waxa weeye waa ficil iyo wax qabad. marka waay aad baan salaamaya insha Allah. sheekadaasi aad iyo aad idin raali geliso. assalaamu calaykum waraxmatullahi.